iyadu meesha ma taalo bilahi tawfiiq. laba su'aalood. su-aasha koobaad waxay leedahay ruux gaal ahaa oo aan xafiis ka wada shaqaynaynay ayaa geeriyooday. marka ehelkiisa ma u tacsiyeyn karaa? aaskiisana sadaqo ma ku darsan karaa? su-aasha labaad, ruux ma sadaqaysan karaa qaybo ka mid a jirkiisa? alxamdulilah. su-aasha qofka gaalka ah ama daris ahaada ama shirkadba ahaada ama meel ka wada shaqeeye hadduu dhinto waa loo tacsiyeyn karaa. laakiin markaa u tacsiyeynaysa dadkiisa waxyaabo mamnuuca jira oo muslimka kaga duwaya. midna waa wada mamnuuca de wixii dembiya samayntiisa gaal iyo muslim waa isaga mid. laakiin gaalka wax dembi ah baa jira, muslimkana fiican. ilaah u naxariisa kii dhintay lama dhaho, waa ilaahay gaal uga naxariisan maayo. ilaah u naxariisiyo, ilaah u dembi dhaafiyo, ilaah u janno geeyo, adaa ku dambaabi. ilaahayna qur-aanka waa lagu barayo qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waaladiina macah id qaaluu liqowmihim. waxaa laga soo reebay ilaa qowla ibraahiima liabiihi la astakfiranna lak. istikfaar inaad u weydiisa lama ogola. nabigana calai salatu salaam markii uu dalbaday hooyadii qabrigeedii inuu ziyaarto waa loo ogolaaday. in ilaahay dembi dhaaf u weydiiya markuu dalbadayna waa loo diiday. qur-aan baa kusoo dego maa kaana linabiy waaladiina aamanuu macahu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba min bacdi maa tabayana lahum annahum asxaabu ljaxiim. saas darteed qof gaalnimo ku dhintay ilaahay baa yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bih inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljanna. saas darteed waxaan la ogolayn meydkiinii allah u naxariista qofka dhintay hadduu gaal yahay, allah u dembi dhaafo, janna allaha geeya laguma ogolo. laakiin sabir allah idinka siiyo, wax ka khayr badan allah idinku bedelo. ilaahay inaad adduunye ugu ducaysa gaalka waa la ogolyahay. wixii aan adduunye ahayn ee diina, ducadu waa hal mid. ilaahay uu soo hanuuniyo, xaqa tuso, inaad ugu ducaysa wey wixii diina. intaa wixii ka dambeeya waxba hay dhihin wuu fiicnaayo, masaakiin buu caawin jirayo, kanuu wax u qaban jiray, waxaas macno ma laha. maalkan wuu sadaqa badnaa. waxaa la yidhaahdaa hadda halkaasoo jaamacada kuma lihin nairobi university, fulan university, fulan university. haddii anigoon ardaynimo enrollmenti samayn aan buugta soo gatoon fiina shugo imtixaanna fadhiistoon galo liiska ardayda najaxday ma laygu soo dari? sabab qabuulka camalku enrollmentigiisu waa ashahaadada. wax kastoo wanaagsan samee haddaadan ashahaadadii la imanin. waman yabtaqii hayra alislaami diinan falan yuqbala min. weligaaba imtixaanka lacagtaa doontaa bixi, buugtaad doona gado, horta enrollmenti soo samey baa ka horreysa sooma. islaamnimada camalka ilaahay inuu aqbalana soo ashahaadaa ka horeysa. taas intaasaan kaga bixina. sadaqadan aad ku darayso wixii ama reerkiisa caawina ama kharashaadka aaskiisa ku baxayee guud ka qayb qaadashaa ama baahi baa jirtee guudoon dadkiisii baa lagu caawin la yiri oodan wax lagu bixin ogeyn, dhibaato ma laga bixin kartaa. hadduu jiro wax gaaraho waxaan fiicnayn lagu samaynayo od og tahayna ka qayb qaadashada ma banaana. gaalna kuma xina, gaal iyo muslimtoona iyo nolol iyo geeritoona waxaad og tahay waxaan fiicnayn in lagu qabanayo wax ku darkiisa lama ogola. ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo ama ha noolaado ama ha dhinto. su-aasha qofka xubnihiisa qaar ma la bixi karaa ama qofka hadduu dhinto maxaa lagu samaynayaa? su-aashu waa laba qaybood. qaybna waxay khusaysaa qofkan dhintay, qaybna waxay khusaysaa dadka ahalkiisii ee xuquuqda leh ee meydkan wax ka dhexeeya. tan dadkiisa isaga khusaysa, meydka sharcigu ma ogola muslimka ah sida uu xurmo u lahaa jirkiisa markii uu noolaa ayaa markuu dhintana uu xurmo u leeyahay. nabig ala slam waxaa ka sugan kasru cadmi lmayiti ka kasrihi xayan. meydka laftiisa la jebiyo isagoo nooloo la jebiyey la xukunta.
riwaayadka qaarkood baa ku asaxay kasru cadmi lmayiti lmumini xaya mumini ka kasriga xaya oo shardiga muminka ku daray. saas darteed qofku markii uu noolaa beer baa laga jeexan, keliyaa laga jeexan, il baa laga fujisan, lama ogolayn. markuu dhintana asalku waa la mid, xurmuu leeyahay in la ixtiraama asalka weeye. wixii daruuraad yimaada waa baabke. haddii uu dhinto qofku inta uu nool yahay waxyaaba u bannaan baa jira. xubnihiisa lamaanaha ah, xubnana waa keli, xubnana waa lamaane. keliyaha, indhaha, xubno laba a jira. xubnana waa keliyo beerka, wadnaha, kuwa lamida. xubnaha kelida ee naftiisu noloshiisu ku xiran tahay inuu bixiyo ma banaano. kuwa kale haddii uu qof ka maarmi waayo, qof noloshii uu ku badbaadinayo uu bixin karaa, mase gadan karo. xubnaha waa ammaano, xoolo milki kuwa maaha. beeca suuqa kama gadan kartid, laakiin qof waad ugu deeqi kartaa. waana daruuraadka waxaa lagu magacaabo qofka la ogolyahay. markuu dhinto xubinta waxaa la yidhi beer iyo wadni iyo ma bixin kartido, kanaan badbaadin taydana waan dili, lama ogola. waayo wadnahaaga haddaad bixiso adu ma noolaani, beerkaaga haddaad bixisana ma noolaan. dee kanaan badbaadin anna waan isdili, lama ogola. marka uu dhinto marka waxaa isku mid noqonaya kuwii lamaanaha ahaa iyo kuwii keliga ahaayo isaga tutiisa oo badbaadadeedu ku xidhan tahay ma jirto. hadday daruuro timaado, dad noloshood la badbaadiyo, qof nool lagu badbaadinayo, way bannaantay. haddii gaal la heli karo, muslimka in la taato ma bannaano. oo xadiidku wuxuu aha kasru cadmi lmayiti lmumini, muminku ahaaye gaalka ma ahayn. haddii gaal la heli kara ma banaana. lidaalika waxaa laga hadlaa ardayda caafimaadka baranaysa, mayday qalaan bay u baahan yihiin. inta gaal la heli karo, muslim in la qalqala lama ogola, ma banaana. waayo xadiidku wuxuu yihi kasru cadmi mayiti lmumini buu nabigu yihi, inta gaal la heli karo. saa darteed in la soo iibsado kuwa gaaladoo xubnaha laga soo gurto baa ka mudan kharash baa lagu bixiye in muslim indha iyo dhega lagala baxo. haddii la waayo oo daruuro laga maarmi waayo, way ku xiranta qof nool in la badbaadiyo, waa la samayn karaa. hal mar bay fuqahadeennii hore ka hadli jireen masaladaas, laakiin iyada ma ahayne mid ku dhow bay ka hadli jireen. waxay yidhahdeen qofku hadduu gaajo naf qabato wuxuu cunana waayo, waa dhiman rabaa, wuxuu cuna ma hayo, meyd baa yaalla, ma cuni karaa. kaasi waxay kala qaadeen gaalka iyo muslimka. ka gaala hadduu heli karo wuu cuni karaa bay dhahay. waayo kasru